بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كيفية تغسيل الميت، qaabka meydka loo dhaqo oo loo kanfo. cilmigan waxaa la yidhaahdaa fardu lkifaa'i. waxay ka koobnaan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xalaqadeennan arrimo dhowr ah. awalan qofka dhaqaya meyd dhaqaya, waxaan rabaa inaan marka hore dhaho ilmuhu horta lab iyo lab way isdhaqi karaan, dhadig iyo dhadigna way isdhaqi karaan, ilaa ilmuhu inuu 7 sano ka yar yahay ma ahani. ilmuhu hadduu 7 sano ka yar yahay oo uu wiil yahay dhib male, hooyooyinku way dhaqi karaan hadday daruuradu timaado ama rag dhaqan la waayo. haddii ay cagsigeeda gabadh noqoto oo dumar la waayo oy 7 sano ka yar tahay, ayadana waa la dhaqi karaa, waa haddii dumar la waayo. wixii intaa ka weyn oo mukallaf ah, wixii intaa ka weyn oo tamyiiz ah, maya, lab buu dhaqi karaa, dhadigna dhadig buu dhaqi karaa, ilaa xaaskaaga maahane. ninku xaaskiisa waa u dhaqayaa, gabadhuna ninkeeda way dhaqi kartaa. walidaalika cali bn abi aalib asagaa dhaqay faatima binti muxamed sala allahu alayh waali wasalam. hooyadana caaisha waxay leedahay dib waxaan ka ogaaday, haddaan horey ka ogaan lahaa nabiga anaa dhaqi lahaa calayhi salatu wasalaam. waa labadaa qof xaqay isku leeyihiin inta uu dhan yahay daraaddeed. intaa waanu garannay, waa qodob. qodobka labaad, qofka meydka dhaqaya waa inuu aamin yahay, waa inuusan meydka ceebo badan buu ku arki karaaye waa inuusan ceebaha faafinayn. an yakuuna aaminan, qof aamina waa inuu yahay. meydadka la dhaqaya anwaac baa lagala kulmaa, noocyaa lagala kulmaa. qof aamina oo sirta qarin kara waa inuu yahay. waa qodobka ugu muhiimsan wey, ajir weynna way ku sugan tahay qofka meydka dhaqa. muqadimada kuma dheeraanayo, waxaan doonayaa qofka meydka dhaqaya inuu qalabkan hadda horteenna yaalla oon mid mid idinku sheegi doono intuusan meydka dhaqin horta in ay agtiisa yaallaan. waxaa ugu horeeya qodobka koowaad, manqas. 2 xabbaan soo qaaday. manqaskaas 2 xabbaan soo qaaday, bimacnaa 2 qof baa laga yaabaa inuu qofna dhinacan uu kaga bilaabo, qofna uu dhinacan kaga bilaabo. waana arki doonaa qaabka iyo goorta la isticmaali doono minqaaska ama manqaska. horta waa in manqas la helaa, waa qodobka koobaad. qodobka labaad, qasil ama shaambo. shaambadii waata, waa kow. qasilkiina waa ka, waa baalka inagu sidriga ayaa carabiga lagu yidhaahdaa, laakiin waxaan u mala haweenkeenna aad u isticmaalo, madaxay marsadaan. waxaa weeyaan qasil bay dhahaan, haddaanan khaldaynin sida loogu dhawaaqo. noocyo ayuu leeyahay tabcan, asagoo noocaana waa jira, asagoo noocana waa jira, laakiin almuhim waa in la helo asagana. qasilkaana waa in meesha uu yaallo. qodobka saddexaad, kaafuur. kaafuurku 2 nooc baa noo soo qaaday, asagoo budo ah oo diyaarsan. wakaa haddaan idin tuso, maalan tusaale ahaan oo kale, kaafuurka isagoo diyaarsan meesha, wakaa isagoo diyaarsan, wakaa waa diyaarsan yahay. kaafuur baa la yidhaahdaa. asaga oo maxaa la yidhaahdaa noocan ana waa sidan, hadhowtana waa la burburinayaa. kaafuur baa la yidhahdaa. haddaad aragtaan caraf ziyaado aad u badan buu leeyahay. yacni xigmada ku jirta haddii la dhaho laga hadlo lamaba soo koobi kara kaafuurkaa. siduu meydka u ilaalinayo, xasharaadka oga ilaalinayo, hawaamta iyo waxa cunaya oga ilaalinayo, jirkiisa uu baaqi oga dhigayo fatra. waxaa weeyaan cajaa'ib buu leeyahay baalkaa la yidhahdo kaafuurkaas. kana waa isagoo fara badan oo noo yaalla, waa isla asaga weeye. qodobka waxaan idhi miski. miski waa ka baalkaa la yidhahdo miskiga, waa ama barfuun ama cadar baan u jeedaa, ha cadar ama miskiga. kana waa isla asaga weeye, isagana aad buu carfoon yahay, waad arki doontaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. miski waana waxyaalaha ugu carfoon weeyaan. qodobka shanaad waxaan idhi bacda ay dhakhaatiirtu maxay ku sameyen dhakhaatiirtu? golofiska kowdhe, kan oo hadda midkana qalliinkan kan ay saas dhahanayaan kow, iyo midka sidan loo xidhanayo. bacda sidan loo xidho markii dadka dhakhaatiirta wax qalayaan, bahalkaa yaree la qasho la xidho, asagana waa qodobka shanaad wey. qodobka 6aad, bacda gacmaha iyo maryo yaryar. maryahaasaa ii raacsan,
maryaha yaryar waa maxay maxaan ka wadaa marada yaryar waa tanaan soo qaaday gacmo gashiga marka la gashado goorma la isticmaali doonaa maradan waxaa la isticmaali doonaa waqtiga istijada ayadoo gacantii sa u duuban tahay oo ay golofis ku jiro ayaa mataqaanaa loo isticmaalaya tana loo isticmaalayaa si hadhowta markii istijadu ay dhammaato tan loo tuuro lianna waxa weyan golofiskii laga yaabo wasaq soo raacda haddana meydkii baad ku dhaqi kartaa may haddana kuma dhaqi kartid haddaa intaadan siibin aadan mid kale soo qaadanayn laakiin tani faa'iidadaas bay leedahay qodobka 7 weeyaan waa burushkan asagana waliba burush jilicsan baan ku soo qoray asagana waxa weeyaan waa loo isticmaalayaa meydka marka la dhaqayo saabuunta lagu shubayaa ama saabuunta inaga aan dhihi jiray maxaa la yiraahdaa mariska asaas la dhahayaa kadib si fiican jirkiisa marka loogu dhaqayaa laakiin sida hadda tan idin soo qaaday oo kale waa inay iyadana ay marka u jilicsan tahay yarhamukallah qodobka suuf ama bambar labadii waan idin soo qaaday qofkan waad garan kartaan wax kasta iska dhici kara ama waaba la qalay ama calooshaba gudaha wax ka jiraan ay shay kastaba markii aad la dhaqo kadib waxaa laga yaabaa inay wax ka imaan karaan saa daraadeed baa la diidayaa markiiba inuu wasakhoobo saa daraadeed bambarkan weyn ee noocan oo kale ah ayaa qofka markii waan arki doonaa aan meydka aanu kafanka aanu gelinayno ayaan kolka hore kafanka markaan dhigno ayaan asagana halkan dhigi doonaa markaasaanu saa iskugu laabi doonaa insha allahu tacaala kadib aan kanfaynaa ama kan haddaad weydo suufkan oo kale lasoo qaataa kadibna kan waa yaryahay wax yar buu yaryahay saasoo kale iskugu laab haddaa rabto inta un mataqaanaa gadaasha asa ugu aadi asna gogosha la dhigi karaa idan ama suuf ama bambar qodobka 9 sharooto leesh limaada sharooto lianna qofkani waxaa laga yaabaa in la turturqay in la qalqalay in la tooriyeeyey waxaad ku qasban tahay marka inaad sharootadan way sharootada noocan waxaan idinku soo qaaday waa sharooto jilicsan oo aan jirka waxba gaarsiinayn ma aha inaad soo qaado shareetooyinka waaweyn oo mataqaanaa jirkii hadhowto hadduu laga soo fujin maago dhib u geynaysa waa inaynan ayadana noqon qodobka 10 kafan ka kooban 3 maro hadduu qofka la kanfayo uu rag yahay waa arki doonaa insha allahu kafanka waqtigiisa 3 maro oo cadcad haddii la waayo madow waa laga dhigi karaa laakiin sida sunnada ah 3 maro oo cadcad ayuu nabiguna baray sallallahu alayhi wasallam waa ragga dumarkana waa 5 insha allahu tacaala haddii alla raali ka noqdo qodobka 10 diyaarso 3 baaldi 3 baaldi midka koobaad waxaad ku qasaysaa qasligan ka labaadna waxaad ku qasaysaa miskiga ka saddexaadna waxaad ku diyaarsanaysaa biyo u dhaxeeya kulayl iyo qabow meydka la dhaqayo jawigu siduu yahay ayaa biyahana laga dhigaa haddii meeshu kulayl ay tahay biyaha waa in loo qaboojiyaa meydka biyaha adigu ku qabaysan lahayd hadday meeshu ay tahay kulayl meydku muxuu u baahan yahay biyo qabow hadday qabow tahayna meydku muxuu u baahan yahay biyihii adigu aad ku qabaysan lahayd oo maxay diiranaabuu u baahan yahay qofkani waa qof xanuunsanaya sidaadoo kale u xanuunsanaya marka 3 baaldi baad diyaarsanaysa haddii tuubo la helana hal baaldi waa laga maarmi karaa haddii meesha tuubo taalo oo hadhowta lasoo furan doono waa la fahamsan maaha laakiin marka hore maxaad u baahan tahay baaldiga midkan baaldiga kan muxuu kan magaciisa kaafuur axsant kaafuurkaasi cajaa'ib weeye qur-aanka lagu sheegay wad arteen soo maaha marka 3 baalbaad diyaarsanaysaa midna waa kaafuurka marka dhuubkan oo kale aad ku samaynaysaa marka hal dhuub ama bakeeriga maarteena oo bakeerigan yar ee shaaha ah oo kale aad ku shubaysaa baaldigan oo kale kadib baa lagu qasayaa asaga goor dambaanu dhigan doonaa insha allahu kanna waad ku qasaysaa raqwa waxa la yidhahda lagu samaynaya balaq baa lagu samayn kadibna maxaa la yidhahdaa xumbo ayuu kicinayaa xumbadaasaan hadhowta isticmaali doonaa iyo biyaha laftoodaba waxaan u malaynaya inaan idiin sheegay 11 qodob oo intaanba meyd meel la saarin marka hore laga doonayo maxaa la yidhahdaa inay yaalaan